kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxa kamid ah xog laga helay Mareykanka oo shaaciyay in uu dhexdhexaadin doono madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo xiisadooda meeshii ugu sareysay ay gaartay iyo Abiy Ahmed oo taageero hoose weydiistay Mareykanka xilli madaxweyne Xasan uu cad yahay mowqifkiisa haddaba miyay kulan foolka fool yeelan doonaan madaxweyne Xasan Sheekh iyo Abiy iyadoo hore loo xasuusto in madaxweyne Xasan Sheekh uu si cad u diiday dhowr jeer isku dayo uu sameeyay Abiy Ahmed oo uu doonayay in ay ku wada kulmaan faahfaahin iyo xogo ayaanu idinkaga haynaa madaxweyne Xasan Sheekh oo soo saaray amarro culus oo ka dhanaa difaaca dalka iyo dagaalka kooxda shabaab kadib markii uu shirgudoomiyay shirkii golaha amniga qaranka oo si adag looga dooday xaaladaha dalka uu marayo wararka kale waxaa kamid ah cabsi laga qabo in kooxda shabaab ay dib u qabsato magaalooyin waaweyn oo ay dhawaan isaga bixi doonaan ciidanka shisheeye ee ADMIS iyo digniin culus oo loo diray dawladda federaalka iyo shirkadda diyaaradaha Qatar Airways oo ka hadashay shilkii ay dhawaan ku gali gaartay hawada Soomaaliya ee sababa in la siiyo amarro kala duwan qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah waana Arbaco 28 bisha labaad ee February sanada 2024 barnaamijkan si shargaray oo dhammaan gaarsiiya saaxiibada kale ee idinku jira baraha bulshada aad baad u mahadsantiin aynu ku bilowno wararkeena Mareykanka ayaa waxa uu shaaciyay in uu markaasi dhexdhexaadin doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba sidoo kale Abiy Ahmed oo xiisadooda meel xun markaasi ay gaartay wararka laga helayo dawladda Mareykanka ayaa waxay sheegayaan in ay markaasi aad iyo aad isugu dhabarjabinayso in wax uun isfahama dhex dhigto haddii Mareykanka ay tahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hawshan waxaa si gaar ah u gashay haweeneyda Mareykanka u qaabilsan Afrika V Moli oo ah kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika taas oo doonaysa in xaaladda ay markaasi ku dhamaato guul labada dhinac ay markaasi dareemaan amaba ay ku naaloodaan waxaa laga soo xigtay iyada oo leh doonista Itoobiya ee dekad ganacsi waa arrin dow ah balse waa in lagu xalliyaa dariiq ah in dawladda federaalka Soomaaliya loo maro madaxweynaha Soomaaliya ayaa wada hadalka ku xiray shuruud ah in marka hore Abiy uu ka laabto isfahamkii Somaliland uu la galay kadibna meel eber ah wax laga bilaabo sidaas ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagu markaasi taagan yahay Itoobiya ayaa durbo Mareykanka toosh markaasi ugu ifinaysa heshiisyada ay dawladda federaalka la gashay Turkiga iyo hadallada ka soo baxay Masar waxayna sheegaysaa in xaaladda ay markaasi uga soo darayaan Mareykanka oo laftiisa ulbooc ah ugu kutubaya Itoobiya ayaa si Itoobiya la qaba dareenka ay muujiyeen Turkiga waana sababta uu heshiis degdeg ah ula gaaray dawladda federaalka heshiiskaas oo midabo badan yeelan kara madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadlay ayaa bidhaamiyay quwado kale oo waaweyn heshiisna ay la geli karaan waxaana uu markaas yiri heshiiska Turkiga nagama hor joogsanayo inaan cid kale kula heshiino badda balse Mareykanka waxa ay kalsooni aad iyo aad u weyn ku qabaan dawlad goboleedyada federaalka kamid ah iyagoo xitaa madaxweynaha ka codsaday in uu ogolaansho ka keeno madaxweynaha maamulkaas ka hor inta aan la saxiixin heshiiska ee afarta xiro ee dhawaan Muqdisho ku wada saxiixdeen وهجاج مدحوين حسن شيخ محمود هدي ولكل مو رئيس الوزراء أبي يهدي كلبا ويجي دونا إن كستوى أبدا تاي إن وسن لكل مدونين ما دام وهري جوان أدق مركزي وقعتي مدحوينها سوماليا لنا عكلا waxa uu markaasi shir gudoomiyay shirka golaha amniga qaranka kaas oo ay goobjoog ahaayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo saraakiisha amniga ee dalka intiisa badan waxa shirka looga hadlay saddex arrimood oo waaweyn kuwaas oo kala ah dardargelinta howlgallada ciribtirka al-shabaab dhamaystirka bixitaanka ADMIS iyo diyaar garowga qorshaha markaasi lagu difaacayo dalka iyo arrimo kale oo hoose madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warbixin guud waxa uu ka dhageystay mas'uuliyiinta iyo taliyaasha ka qayb galay shirka oo faahfaahiyay xaaladda guud iyo dagaalka shabaab madaxweynaha ayaa goobta ka hadlay waxaana uu sidoo kale ku adkeeyay hay'adaha amniga in ay ka dhabeeyaan hirgelinta habraaca xakamaynta hubka iyo rasaasta
ay soo iibsanayso Soomaaliya maadaama mar dhow laga qaaday cunaqabateynta hubka ee hore u saarneed. Waxaa kale oo uu tilmaamay in guusha laga soo hooyay qaadista cunaqabateynta hubka ee asaas u ahayd hirgelinta qorshaha ilaalinta saanada iyo hubka ciidamada qalabka sida. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in ay tahay in loo diyaargaroobo difaaca dalka iyo sidii markaasi loo difaaci lahaa dalkan markaa ay ku soo duuleen cadowga faraha badan oo markaasi Itoobiya haatan ay ugu weyn tahay. Waxa uu faray taliyayaasha ciidamada in ay isku dubaridaan ciidamada isla markaana la tayeeyo ciidamada sidoo kalena laga shaqeeyo sidii loo qori lahaa askar badan oo Soomaaliyeed oo markaa qarankooda u dagaalanta. Waagaag barnaamijkeena ayaad weli la socotaan saaxiibayaal. Cabsi ayaa laga qabaa in Al-Shabaab ay dib u qabsadaan magaalooyin waaweyn oo ay dhowaan ka baxayaan ciidamada shisheeye ee ADMIS. Wararka aanu ka helayno ee deegaanada Jubbaland ayaa waxa ay markaasi sheegayaan in dhowaan la qorsheynayo in ciidamada shisheeye ay markaasi ka bixi doonaan qaybo ka mid ah ee deegaanadaasi. Wararka ayaa waxay sheegayaan in meelaha laga bixi doono ay ka mid yihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo. Waxaana halkaas laga cabsi qabaa in ay Al-Shabaab markaasi dib u qabsadaan maadaama la sheegayo in Al-Shabaabku haatan ay is-abaabulayaan isla markaana ay doonayaan in weeraro qorshaysan ay fuliyaan. Kooxda Shabaab ayaa doonaysa in markaa degmooyin muhiim ah ay ka baxaan ciidamada shisheeye in ay dib u qabsadaan, taas oo aad iyo aad looga digay dowladda federaalkana la wadaagay khatarta arrintaasi ee ka dhalan karta. Si kastaba ha ahaatee, Shabaab ayaa isku dayaya inay markaasi sameeyaan tallaabooyin ay markaasi rajadooda dib markaa ugu soo nooleynayaan. Ugu dambeyntii, shirkadda diyaaradaha Qatar Airways ayaa ka hadashay shil ka dhici gaaray hawada Soomaaliya maalmo ka hor. Labada diyaaradood oo kala ahaa diyaaradaha Qatar iyo sidoo kale Itoobiya oo kasoo kala kici timay Dooxa iyo Addis Ababa ayaa isku markaasi jirsaday masaafo isku dhow iyagoo ku socdaalaya khad isku dhow sida ay sheegtay Somaliland. Si kastaba, hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed arrintaasi waa ay beenisay walow Somaliland ay iyadu arrintaasi sheegtay. Haddaba afhayeen u hadlay shirkadda Qatar Airways ayaa sheegay in hawshan iyo sida ay wax u dhaceen ay la wadaageen mas'uuliyiinta ay khusayso. Shirkadda ayaa ku faantay in hawshan ay si habboon u maareeyeen duulimaadyadeeda amaba duuliyayaasheeda caalamiga ah ee u shaqeeya kuwaas oo ay sheegtay inay u tababaran yihiin dhacdooyinka kadiska ah ee ku qabsada markaasi ee hawada sare. Arrintan waxa ay keentay in markaasi Somaliland gebi ahaanba laga dimiyo raadiyihii yarka ahaa ee isticmaalaysay, haatanna diyaaraduhu waxay toos ula soo xiriirayaan Soomaaliya. Guudaan saaxiibayaal daawadayaal wararkeennii intaas ayay ku idil yihiin. Wararkan wararkooda xigantaan mar kale dib ugu kulmi doona. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.